بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، باب النهي عن الشماتة بالمسلم. عن صلة بن الأصقع رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. أخرجه الترمذي. waxaa la diiday qof muslima dhib ku yimid ama musiibo ku habsatay in aad ku faraxdid oo ay ku noqoto wax markaa adiga ku farax geliya. saa darteed buu wuxuu leeyahay waasila waxaan maqlay rasuulka oo leh war ha ku farxin walaalka muslimka dhibka ku yimid ha ku farxin. waa intaasoo ilaahay isaga intuu ka qaado adiga markaa kugu imtixaano, waxna maadaama ay yihiin aan la ogeyn meesha wax jiraan, idan ilaahay subxaanahu wa tacaala u baryo waxaa tiri alxamdulillahi alladii caafaanii mima ibtalaahu lahu bihi. alxamdulillahi alladii caafaanii mima ibtalaahu lahu bihi. wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka kan uu ku imtixaanay allaha iga badbaadiyey baa mahad leh. inta aan ku gaabso, laakiin ma aragtay qof waxaad arkaysaa markuu arko qof curyaana uu leeyahay ilaahay qofkuu ka yaabo meel buu tiraa iyo ma aragtay wixii saan looga dhiguu qabaa iyo wixii xubnaha loo tiruu qabaa iyo howlahaas meesha ma yaalaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qadaray, adna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weydiisataa in uu kaa badbaadiyo imtixaanka ninkan markaa ku yimid. macnaha xadiidka waa sidan wa ilaa huna wabillahi towfiiq.